الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر maantay waa maalin kale oo guul ah maantay taariikhdu tahay 5 bisha 2 2025 waxaynu joognaa maalin kale iyo guul cusub shalay halkan waxa ka dhacay dagaal dariin duleedkeeda dhinaca koonfureed waan hadda aan joogo iyo meelo kaleetaba nimankii khawaarijta ahaa oo dadka islaamka ka been sheegi jiray iyo diinta islaamkaba oo daalimiinta ahaa oo meesha joogay waxa ku gaaray khasaare lixaad leh oo aad lixaad u leh aysan ka soo waqsan doonin muddada tan tusaale ahaan goobtan anigu aan ku suganahay hadda aan joogo waxa taala 57 nin oo markay ugu yaraato 50 iyo dhowr ka mid ah ay ajnabi yihiin inta ugu badan cadaan tahay meydkoodii meeshuu daadsan yahay saxaafadda waa aragtay qalabkii laga furtay waa u jeedaan calankoodii baad u jeedaan waxa kani waa budadii ay miinada ku qarxin jireen halka waxa yaala muxuu ahaa bahaladii ay diyaaradaha ku xirin jireen oo ku qarxin jireen oo baaruud dalaga fudud ku jirtay nimankaas waxa gaaray waxyeello aad u weyn haddii alla idmo mana ka hari doono god kasto ay galaan iyo meel kasto ay galaan waa uga tabadegi doonaa haddii alla yiraahdo inta aan ka soo afjarayno waxa ay ayagu ku socdaan oo beenta iyo malaawaalka ah nimankaas qaayimiinta ah oo qowleysatada ah oo wax ka xaraano aysan jirin oo haddana diinta islaamka ku qaraabto beenta ka sheega islaamka magaciisa biiya god kasta oo ay galaan haddii alla idmo waa ka dabageli doonaa ciidamada dagaalka ku jira geesiyaasha dagaal baa kooxaha qawaariista oo burcadiimeed oo ajaaniibta oo kulligood wada cadaanka u badan yihiin waxaan u malaynayaa 4 qof baan aragnay 57 halka meydkooda buurtan yaallo intay gurteen kama hadlayno dhaawac ay qaateen kama hadlayno waxa meelaha boholaha ku jira kama hadlayno buurtan hadda aan saaranahay 57 baa meeyda taala 3 qof 4 qof baa wax madow ku jira afrikaana inta kale waa cadaan haddaan sii wada joogno waxaan leeyahay iyaga fariintaan u diray waxa weeye haddaan sii wada joogno maalmaba haddaan sii wada joogno annaga Soomaali ahayn oo dulkaan lahayn oo ciidankii difaaca Puntland ahayn annaga ahaynba haddaan sii cagaba ku sii wada haynaba shacabka Puntland waxaan leenahay waa hambalyeynaa sharaf baa leedihiin sidaan loo garab istaagantihiin waa idin mahadcelinaynaa iyo dhirigelintiina annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa waqti kooban inaan kaga saarno buuraha goolis ciidamada Puntland oo geesiyaasha hawlgalka ku jira goob kasta ay ku sugan yihiin waxaan u diraynaa hambalyo waa guuleysanay waa laynay waa qabanay waa dhaawacnay inta kale waa ku daba jirnaa qalabkoodii horin ka mid ah intaan bay qabat inta kale goobaha lagu soo bandhigaya nooc kasta ayagoo ah saanadoodii iyo hubkoodii waa soo bandhigaynaa haddii alla idmo haddii ilaahay idmo
waxaan u diraynaa hambalyaa idin leenahay wakhti yar baa inoo hadhay waana guulaysanaynaa buuraha iliga yaroo liiqliiqanayaa ka arag iliga yarkaana insha allah wakhti yar oo kooban ma oranayo intaasoo saac laakiin waxaan idiin ballanqaadaynaa inaysta maalmo nagu qaado ilaah baa weyna waaxida nabigana waxaad ku salina marka koowaad intii saraakiishu ka hadashay baan leeyahay waa meeshii goobtii koowaad oo ka diriiraysay guuta saddexaad iyo guuta koowaad aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin si ay isu garabsadeen iyo si ay mataqaanaa uga wada qayb qaateen mahaddaas iyo guushaas iyo mataqaanaa isku duubinaas waxaa keenay madaxweynaha Puntland iyo shacabweynaha Puntland iyo taliyaha ciidanka daraawiishta iyo ciidamada isku duuban isku kalsoonida iyo mataqaanaa hagar la'aanta la si uga dagaalameen dadka aan meesha kula dagaalamayno aad arkaysaan in cadaanka ah xuduud ma lihin wax wadana ma lihin dagaalnimo dhex marin wadanka kuma aan casumin wax noo keenay ma naqaan annagii muwaadiniinta ay saan uga dagaalamayaan marka inta ka hartay oo labada iyo saddexda ahna waxaan ku soo qaban doonaa iyagoo qaaqaaban baan keeni doonaa hadii la oo kaba afka ku sita waxayna tuseen dadka reer Puntland tuseen shacabweynaha Soomaaliyeed tuseen in laga adkaan karo cadowgan khawaarijta ah ee ajnabiga ah ee dalkeena ku haysta wax dhibaato ah oo inaga gaaray ma jiraanin ciidda ay noo helisay dhibaatada aynu gaarsiinana midweyne waa soo duubtay wixii laga qabtana waa kan sidaa iyo si ka daran baana dhici doonta waxaanu ka qaadaynaa marka dambeeya dardar bay noo tahay waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay in ay noo fududaato inaanu waqti kooban ku soo afjarro waxa meeshan adeer wada joogay ajaanib bay ahaayeen nin ajnabi ah oo dalkaagi sida kuula dagaalamayo oo dadkii ciidda la u dagaalamayana dadka reer Puntland oo shacabka ah iyo dhammaantoodba waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeensadaan ciidanka difaacuna ilaa 3 goobood oo kale uu dagaalka ka galay halkan ciidamada ku mataanaysnaa waxaan ilaa 57 nin baa waxay taala intaan aragnay buurtaan miidiyuhuna uu duubay in badan oo ciidanku uusan gaarin oo khasaarahooda uu yaallo oo naga horreysana waa jiraan